booqashadan ay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga Puntland ee BSF ay ku tageen degmada Ufayn oo ka tirsan gobolka Bari ayaa isugu jirta geynta daawo baahi weyn ee u qabeen dadka deegaanku iyo ogaanshaha ammaanka guud ee deegaanada hoos yimaada degmada Ufayn. geynta daawadan ayaa timi kadib markii maamulka degmada iyo bahda caafimaadka Ufayn ay xiriir la soo sameeyeen madaxda ciidamada xoogga Puntland ee hormuudka uu ka yahay agaasimaha guud ee ciidamada General Asad Cismaan Cabdullaahi in ay deegaankaasi ka jirto baahi daawo. agaasimaha guud ee ciidamada xoogga Puntland General Asad Cismaan Cabdullaahi oo ka jawaabay xiriirka ay la soo sameeyeen maamulka degmada Ufayn ayaa deegaanadaasi ugu deeqay daawo isugu jirta hooyada iyo dhallaanka, cudurrada guud iyo mid looga hortago qaniyada masaska dadkuna ay aad ugu baahnaayeen. maamulka degmada iyo bahda caafimaadka ayaa saraakiisha ciidamada xoogga Puntland ee BSF ku soo dhaweeyay degmada Ufayn waxaana daawadaasi la geeyay cisbitaalka guud. madaxa agaasima waaxeedka arrimaha bulshada ee ciidamada xoogga Puntland gaashaanla dhexe Cabdulqaadir Cali Xirsi ayaa xog dheeraad ah ka bixiyay daawadan ay ugu deeqeen degmada Ufayn. sida lagu yaqaan ciidamada BSF oo marba sida wax u kala jilicsan yihiin ama waqtiga waxa taagan ee baahiyaad ay tahay inaan gacan ka geysano maanta oo ay tahay waqti kaliileed waxaanu halkan keenay baahidii koowaad ee loo qabay ee degmada ka jirtay oo ah daawadaas oo ah mid aad tayadoodu u sareyso iskugu jirta noocyadeeda kala duwan ee bini'aadamku hadday tahay dhallaanka iyo hooyada hadday tahay cudurrada guud hadday tahay dressing hadday tahay falabooyinka nafaqooyinka iyo shubanaadka hortagiisa hadday tahay daawooyin gaar ah oo maadaama ay caris tahay oo ah anti snack baalaha hoose ay soo baxaan waqtiyada kaliisha aynu ognahay meelaha cariskaana ay caanba ku tahay Soomaaliya. alxamdulillah waxaanu halkan maanta aad ugu faraxsanahay in mas'uuliyiinta degmadu oo hogaaminayo gudoomiyaha duqa degmada Cali uu joogo goobjoog ka yahay madaxa caafimaadka Masar Shamaarka. duqa degmada Ufayn Cali Jaamac Jibriil ayaa madaxda ciidamada xoogga Puntland ee BSF uga mahadceliyay daawadan ay soo gaarsiiyeen degmada Ufayn waxaana uu sheegay in BSF ay hadiyo goor ammaanka iyo arrimaha bulshadaba ay garab taagan yihiin. waxaan mahadcelinayaa ciidamada BSF oo markasta u taagan amniga iyo horumarka deegaanada Puntland oo ku amaanan iyagoo marka hore amniga Puntland maartay kaalin weyn ka qaatay oo ah dhabarta muhiimsan inay haddana ku dareen arrimaha bulshada ka mid tahay inay iskuullada caawiyaan goobaha caafimaadka caawiyaan magaalooyinka dhireeyaan biyihii ummadda u qaybiyaan ceelasha qodaan حقيقة هو أريم أرتي هو فرحه ما أرتي مهمة دلالة بما تقول أمان عليه مكوا علينا كم سنتي أنا عادينا أنا وقال لا أفكار هي ما أرتي دماغ فريق كومنت هي شعب كذا إن الله ولا يجني مركي بعد معمولة على عفمات كورة لكن أنا أعتقد إن هي معمولة عفمات كورة داود كانين يجري BSF degmada Ufayn waxa hoos yimaada tuulooyin aad u ballaaran waxana ku nool bulsho aad u badan baahi weyn u qabay daawooyinkan ayadoo dhanka xoolo dhaqataduna ay deegaanadaasi aad ugu badan yihiin. hoggaanka ciidamada xoogga Puntland ee BSF ma ahan markii ugu horeysay ee deegaanada Ufayn la geeyo daawo ayadoo bahda caafimaadku ay horay u soo gudbiyeen in daawo la'aan deegaanadaasi ka jirto sanadkii ayna soo dhaafnay isla markaasina daawooyin xoog leh deegaankaasi la geeyo. deegaanada daawo la'aantu soo foosartay isla markaasina xiriir la soo sameeyay madaxda guud ee ciidamada xoogga Puntland lagana jawaabay deegaanadaasina daawada la geeyay waxa kamid ah Buursaalax, Carmo, Gaalkacyo, Timirshe, Ufayn, Baran iyo goobaha ay degan yihiin dadka soo barakacay ee ku nool magaalada Boosaaso ayadoo dhanka kalena daawo xoog la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Boosaaso. ciidamada xoogga Puntland ee hormuudka ka yahay General Asad Cismaan Cabdullaahi ayaa wada sugidda ammaanka guud ee dalka iyo gacansiinta bulshada iyo ka shaqaynta arrimaha bulshada deegaanada Puntland.